dhibaatada taagan waad arkaysaan roobkii waa raagay uleeskana waa batay beled iyo baadi waa la kulaaday geelihii fadhiyu bilaabay arigii waa dhammaani haayaa dhulka intaan naqaano dhulkeena oo haddii yahay Kenya aan joogno haddii yahay Soomaaliya haddii yahay Ethiopia rooba aad iyo aad looga baahan yahay dhibkaasna arrintaas Ilaahay Azza wa Jalla agtiisa wax ku yar malaha arrintiisa waxay ku egtahay kale kun ahaaw ay tahay dembigeena ayaa Ilaahageena subxaanahu wa ta'ala nagu xisaabtami hayaa dhibkaan kuleelkaan abaartaan waxyaradan biiradan dhibaato aan geysanay sababteeda waaye Allaheena subxaanahu wa ta'ala annakuun imtixaanaheena fiirinaya Ilaaha subxaanahu wa ta'ala haloo tawba keeno Allah haloo noqdo dembiga macaasiyada lagu dhex jiro ka dhex bah qof kastoo Allah hada jalla jalaaluhu ku jecel yahay waa naxariis badan yahay Allaheena aan u noqono hala tawba keeno astaghfirta hala badiyo ilaahu ii dembi dhaaf hala badiyo qof kastoo macsi ku dhex jira dembi ku dhex jira dembigaas ka dhex bah dad qof kastoo ku dhex jira dadka dulunkooda dhibkooda ku dhex jira afkiisa dadka ku dulminahay gacantiisa dadka ku dulminahay dadka dhiigooda daadinahay qof kasta Allahada u noqdo halas cafiyo qalbiga halusu furo masaakiinta xaaladooda hala fiiriyo haloo naxariisto dadka gaajaysan dhibaataysan annakana dhexdeena ku gaajaysan dhibaatada qabaan dadkaas haloo gargaaro intaas dhan kulli astaghfirta hala badiyo Allaheena aan u noqono insha Allahu ta'ala haddii Ilaahay nafta nagu simo khamiista soo socoto ku talagala roob doon laskugu soo baxay masaajidka weyn jaamica mooska meeshii aan isku imaan jirnay halagu soo talagalo ilaah idinkiisa masaajida imaamiyaalka dhammaan waxaan ka codsanaynaa in la qunuudo naazil waay arrintaan dhibaato taagan culaysa taagan arrintaa marka waxaan ka codsanaynaa dadka dhammaan masaajidaha imaamiyaalka waxaan ka codsanaynaa in la qanuudo dhibaatooyinka fara badan muslimiinta ku dhacaysa caalamka dulanka ku dhacay iyo roob la'aantan in Ilaahay subxaanahu wa ta'ala laga bariyo in Ilaahay naga qaado dhibaato kasta جزاكم الله خيرا إلهي سبحانه وتعالى اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم إنا نستغفرك فإنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم أرسل السماء علينا مدرارا إله نصور به إله نسوقار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه